waa qisadii la magac baxday Silac iyo Saxriir Jacayl. Ku soo dhawaataan qisa jacayl oo aad u xanuun badan kuna dhacday gabar Soomaaliyeed. Qisadan waa tixane halkan ayaadna ka daawan doontaa. fadlan si aysan kuu dhaafin qaybaha kale ee qisada follow dheh bogga like-na saar videoga si dad badan oo u gaaro. qaybta koowaad ee qisada sidan ayay ku bilaabanaysaa. Leylo waa gabadha ay ku dhacday qisadan xanuunka iyo murugada badan. waxa ay safar ku tagtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, halkaas oo ay ugu yeereen eheladeeda si leyn dibadda ah ay ugu baxdo. Leylo ma jirin qof ay ka garanaysa meesha. in muddo ah markii ay joogtay ayay ayada iyo eedadeed go'aansadeen in Leylo iskool gasho. Leylo waxaa la geeyey iskuul sida aan uga fogeyn xaafadda ee deegaanka ku ahaayeen. halkaas ayuuna ka bilowday halgankii waxbarasho. Leylo waxa ay isbarteen gabar lagu magacaabo Deeqo oo ay daris wadaag ahaayeen. Deeqo ma ahayn gabar deegaan ah oo waxa ay fasax gaaban uga timid magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. nasiib darro waxaa dhacday Leylo iyo eheladeedii inay isku fahmi waayaan dhanka nolosha uma aysan suurto gelin waxyaabo fara badan ee u baahneed. kol haddaad han weynaato halka aad ku dhalatiyo hooyga aad ku nooshahay hooyadaa ka dheeraato hubaal weeye inaanay hil kuu noqonayn dadka kale ha qabtiri karin baahidaada. balse Leylo waxa ay ahayd gabar karti iyo firfircooni eebbe u dhaliyey oo waxa ay go'aansatay in culayska ay ka qaado eedadeed oo ay ku wareegto saaxiibteed oo u dhammaaday waqtigii fasaxa loogu talagalay. Leylo waxa ay ku wareegtay guriga saaxiibteed Deeqo kadib markii ay u xog warantay. Deeqo oo iyadana aad u danaynaysay sida ay ku heli lahayd wiil ayaa soo dhaweysay fikirka Leylo. waxa ayna u safreen dalka Uganda. nasiib wanaag waxa ay la kulmeen xilli farxadeed oo waxaa la gursanayay gabar ay u ahayd gacanyaro amaba shaqaale. Leylo iyo Deeqo sidii ayayna kaga qayb galeen arooskii, waxaana goobta ku wehelinayay Deeqo dumaashigeed iyo wiil ay saaxiibo ahaayeen. Leylo aad ayaa loo soo dhaweeyey, waxayna ula dhaqmeen sida inan ay hore u garanayeen oo kale. Leylo magac ahaan guriga waxay ku joogtay inan shaqaale ah, balse waxa ay u muuqatay ehelka in ay ka mid tahay, mana loo muujinin in ay tahay shaqaale. Leylo waxay isbarteen Cumar oo ah Deeqo dumaashigeed, isla markaana wuxuu u muujiyey dabacsanaan, dareen, nugaal, daacadnimo iyo dhiirigelin oo u noqotay inanta cilada wehel. way isfahmeen oo xilli waliba sheekada ayaa isugu bixi jirtay. Leylo oo ka hadlaysa wanaagga iyo sharafta uu leeyahay Cumar ayaa tiri, xaqiiq bilowgii barashadeena marnaba ma aanan dareemin wax cidlo ah oo maalinta aan bartay ayaa iigu dambaysay murugo. si wanaagsan ayuu ila dhaqmi jiray had iyo jeer, kana warqabi jiray wax walba oo ila soo gudboonaada. maxaase ka dambayn doona? yeelkeeda Xamdi waa gabar ay habar wadaag yihiin Cumar. run ahaantii si xad dhaafa ayay Xamdi u jeclay inanka ay habar wadaag yihiin ee lagu magacaabo Cumar, balse isaga kama uusan warqabin. ayadana awood uma aysan yeelan ee dareenkeeda ugu sheegato, maadaama dumarka caadadooda ay tahay in jacaylkooda ay qarsadaan. Xamdi aad ayay uga guban jirtay sheekada iyo kaftanka dareenka leh ee dhex mari jirtay Cumar iyo Leylo. ruux bukaan ah boqol baa u talisee mid baa dawo ugu baaqaa, waad ku bogsan yiraahdaa. beer wax jeclaadayna baahidiisa badanoo baylaha inuu ka baxaa bishaaradiisu tahay. intaas ayay ku egtahay qaybtii koowaad qisadii Silac iyo Saxriir Jacayl. waana inoo qaybta kale haddii Alla idmo. waad ku mahadsan tahay daawade iyo socodkaaga.